soo dhawaad saaxiibayaal maanta waa 14 abriil waxay ku astaysan tahay dhamaadka mudaxileedka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya dad badan oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay maadaama baarlamaanka 11aad mudaxileedkiisii maanta uu dhamaaday aan lahayn baarlamaankii bedeli lahaa ama aan waliba la soo xulan ama doorashadiisii aan loo dareerin siyaasiyiin badan oo mucaarad ah ayaa arintani ka hadlay iyagoo ka digay in dalka laga ilaaliyo firaaq dastuuri ah inuu galo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee arintan ka hadlay war saxaafadeed ayuu soo saaray madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray war saxaafadeed uu si qoto dheer uga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta habraacyada dastuuriga ah iyo wada shaqaynta hay'adaha dawliga war saxaafadeedkan ayaa waxa uu ku bilowday xusuusin ku saabsan marxaladda xasaasiga ah ee ay Soomaaliya ku sugan tahay taas oo u baahan wada jir wada tashi xoojinta kalsoonida dadweynaha iyo hay'adaha dawliga Farmaajo ayaa sheegay in dalka hadda uu marayo marxalad halis ah oo u baahan go'aan adag iyo hoggaan mas'uul ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu si gaar ah u xusay in mudaxileedka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu si rasmi ah u dhamaaday maanta oo taariikhdu tahay 14 abriil 2026 wuxuuna tilmaamay in arintani ay la jaan qaadayso dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ee la ansixiyay 2012 kaas oo si cad u qeexaya muddada xilxeynta golaha shacabka sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in qodobka 69aad ee dastuurka uu si cad u tilmaamayo in baarlamaanku uu yahay hay'ad sharci dejin ee dalka isla markaana uu leeyahay awoodda ansixinta sharciyada ilaalinta nidaamka dawladnimada iyo la socodka fulinta waajibaadka dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka digay khataraha ka dhalan kara haddii la hareer maro habraacyada dastuuriga ah isagoo sheegay in tallaabo kasta oo ka baxsan sharciga ay dhaawici karto kalsoonida shacabka isla markaana ay horseedi karto qalalaase siyaasadeed iyo mid amni dhanka kale war saxaafadeedka ayaa Farmaajo waxa uu ku xusay in mudaxileedka madaxweynaha uu yahay 4 sano sida ku cad qodobka 91aad ee dastuurka taas oo mar kale muujinaysa baahida loo qabo in si adag loogu hoggaansamo nidaamka dastuuriga ah ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay dhammaan madaxda dalka siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed in ay ilaaliyaan dastuurka xoojiyaan wada shaqaynta hay'adaha dawliga isla markaana ka fogaadaan tallaabo kasta oo keeni karta kala qaybsanaan iyo jahwareer siyaasadeed war saxaafadeedkan ayaa ku soo beegmayay xilli xasaasi ah oo ay Soomaaliya wajahayso caqabado siyaasadeed iyo kuwa amni ah iyadoo baaqa Farmaajo uu noqon karo mid saameyn ku yeesha jihada siyaasadeed ee dalka maalmaha soo socda